الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أن إن شاء الله تعالى العفة والحصانة dhowr sanida wax ka mid ah ayaynu ka warrami doonaa in qofka muslimka ah waxna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu faray inuu sameeyo, waxna waa laga reebay ama waa laga nahiyey inuu samaynin. waxaa lagu amray haddaad samayso ajar baad helaysaa, waxaa lagaa reebay haddaad ka tagtan oo ilaahay dartii uga tagtan aysana ajar baad helaysaa. labaduba waa ajar. alkafu can almuxaramaat, cifadu ama dhowrsoonnida aynu markaa sheegaynaa, culammadu way qaybqaybiyaan oo ilaa 4 qaybood bay ka dhigaan, laakiin innagu qayb ka mida baynu ka warramaynaa. mar waa cifa can ilithm oo laba u qaybsanta, marna waa cifa can ilmuxaramaat oo laba u qaybsanta. innagu waxaynu ka warramaynaa alcifa can ilmuxaramaat. cifa can ilmuxaramaat, dhowrsoonnida uu qofku xaaraanta ka dhowrsado, marna carabkay ku saabsiisantahy, waa cifatu lisaan, qofku inuu carabkiisa ilaaliyo oo waxa xunuu ka ilaaliyo. marna waxay ku saabsiisantahay cifatu lfarj aw xifdi lfarj, qofku inuu farjigiisa dhowro oo zine iyo xumo ka dheeraado. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishaة wasaaءa sabiila. ha u dhowaanina baa la yidhi, ha zinaysanina lama odhan, waxaa la leeyahay ha u dhowaanina zinada. zinada waxaa ka horeeya muqadamaat, waxay leedahay waxa la yidhaha dawaaci الzina, waxa qofka ku bixiya inuu waxa kan sameeyo. waxaa ka horeeya ka dheeraada baa la leeyahay ha u dhowaanina. haddaba dhowrsoonnida la dhowrsanaanayo, alcifa can الzina lala imanayo, waxay ka mid tahay sharcigii soo degay intii maka la joogay. inta badan tashriicaadku madiinay ku soo degeen, qur-aanka madanigaaba ka warrama. qur-aanka makiga inta badan caqaa'idda iyo akhlaaqiyaadku ka warrama. mas'alada tan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka makigaabuu si xooggan ugaga warramaya. suwar badan oo makiya ayaa alle subxaanahu wa tacaala kaga warramaya. haddaba wax waliba mihaaladay ku fiican yihiin. nusuusta badan waa laga yaabaa inay in badan maqasheen. aan amhilada tilmaamo. suuratu taxriim, ilaahay wuxuu kaga warramayaa subxaanahu wa tacaala 6 haweena ayaa suuradda ilaahay kaga warramaya. 6 haweenaa lagu sheegay. 6da haweene suuradda tani ka warramayso, 2 waa la waaninaya oo waa xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waridwaan ullaahi calayhin. waa caaisha iyo xafsa oo waxoogaa isku dayey hinaasa intuu qaaday inay dumar kale nebiga ka dheereeyaan. labadaa ilaahay suuradda wuu ku waaninaya. waxaana looga warramayaa 4 dumar oo kale. 4ta dumar ee kale laga warramayo, 2 nebiyaa qaba, 2 nebi baa qabay, laakiin waa ahlu naar baa ilaahay ku tilmaamaya. waxaa la tilmaamayaa markaas jannada iyo wanaaggu waa waxaad shaqaysataa awalana. nebi baa i qaba, ama sheekh baa i dhalay, ama nebi baa i dhalay, ama aan dhalay.
asalhaan lagu badbaadi maayo haddaanad tawxiidka iyo dariiqa saxa marin qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa ambiyo carruurtoodii u taag waayo ay lumeen nebi nuux oo ilmihiisii u yeedhaya oo u diidoo ka baxsaday qur-aanka ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim oo aabbihii la hadlaya oo u diiday halkanna waxaa lagaga warramayaa laba dumar ah oo laba nebi qabeen oo diiday oo ahlu naar noqday وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي وحط صالح دين يا بالي قال لماذا لبطوا الصالح امرأة نوح هوين النبي نوح قبي يا هوين النبي لوط قبي oo labaduba aan ambiyada raacin ee ahlu naarka ka mid ah marka labadii haweeney nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay dariiqa haddaa martaan ahlu naarka ku biiraysaan weeyaan waxaa kaloo ilaahay tusaale ku siinaya laba haween oo aan nebiya qabin laakiin ahlu janna waaweyn ka mid ah laba haweena idan qofku waa waddadu maray ku xidhantay dhaqanka iyo suluugu la yimaadabay ku xidhantay waxaa kaloo la tilmaamaya qofta dumar inay shakhsiya mustaqila leedahay ninkeedoo nebiyana inay dariiqa dalaalka carari karto ninkeedoo fircawnana inay mari karto maxay dariiqa saxa ah وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين فرعون كي قال لماذا بدنانا إلهي وعقا ورمي وهوين ذو قبينا إسلام طي وإذا في عن كم النقطي قفك الدمر يلا بادئ إلهي وعقا ورمي هوين كي نبيك هي مسلمين تكتب بيسبع ومريم ابنة عمران وقبضنا قولي مقعيد قرآن كفصار ورأي مركب كوان لحية اللباتن شربنا إلهي مقعيد قرآن كفشاب وقبضنا قولي لو أبتريي يدا قولي كما قرأي مع أبيه باكو قرآن مريم دي عمران هيد با إلهي سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران مريم دي عمران هيد با إلهي سبحانه وتعالى إذا وقفك الدمر مقعيد هذه الأخرياء أجرك اللي هلي إلا القرآن كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام حرف كستوى أخرده 10 حسنات بعد لا يدبالي ما إذن اللي هو يدى ألف لام ميم حرف ما هي الألف حرف واللام حرف هي والميم حرف مريم بنت عمران مساجرات فيها ليس مقعيد مركز أخرده وميم راء ياء مقعيد وافر ابنة وألف يا باء يا نون يا طاء وعمران وعين يا ميم يا راء يا ألف يا نون انت سو أجرات ليس مقعد قرآن هذا أخرج وقرآن هو أخرج إذا هوين إذا تن أهوين تقرأ مقعد القرآن كإلهي وكنت المامي وهوين عباده يوناك عام بحضي عباده يوناك عام بحضي هل كان صفة الله كصفين يكواد وحويان إني تهي مد دورصون وفرجي هذا دورتي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها بينها مريم أنا عمران هاي دورصناتي فرجي هذا دورتي بإلهي إلهي حمك دورتي تبتنا فنفخنا فيه من روحنا لأنه أفوفنا الروح يجا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الرميسي إلهي كالمدهيسي هي كتبتي سيبا كم من أهيد كوا قانتك كوا عباديسته كوا خضوعه وحين هذا هلك كان قضاياتك عباداتك يا وامرتي الربية يفلسي وحلق سوهر مري دور سنتين نواهدي هي حمها يكر دور سنتين سيدا أوجد أي قفك دور سندي سوى الدين ووحى إلهي كو أمانا يا مريم قرآن بدن با إلهي كغور رميا
وقرآن مدنية هي قرآن مكية بله والذين هم لفروجهم حافظون إلهي مركو كور رمي يكوى الليباني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلهي مركو شاقي كوى مؤمن كالليباني صفات بالغوت المامي إني سلاد ودقو خشوعان إني اللغو يحما كالديرادان إني الزكاة السمايات صفات كالغو شاقي وحكم ده والذين هم لفروجهم حافظون وكوى فرجقو الدوربا إلهي وحي حلاشة وأهم ويعني وحكا لفرجقو الدوربا مرهاسا حقا دم الغوت المامي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جنة بوسكا وقصر ريا فردوسي وأعلى الجنة جنة هلكا وقصر ريسا كوى دحليا صفات كإليين إيه ونكسن إلهي وحكم مدرقي إني كمتي حفظ الفرج إلا اللي والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kuwa dhowrsoon ee farjigooda ilaaliyay iyo kuwa ilaahay xusay iyo kuwii ka horreeyayba ilaahay wuxuu sheegay kuwa in loo diyaariyey dambi dhaaf iyo ajar weyn inay aakhire helayaan waa la faray qof kastoo mu'mini inuu farjigiisa dhowro qul lilmu'miniina yagudduu min absaarihim qul lilmu'miniin waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi kuwa iimaanka laga helay indhihiina laaba dheh wayaxfaduu furuujahum farjigiinana ilaaliya dheh dalika askaa lahum baa ilaahay sidaas baa u tahaaro badan ama u fiicnaan badan haddaba mas'alada tan ajarka qur-aanka iyo axaadiista ay ku sheegayaan waa ajar hayru caadiya maalan maalinta qiyaamaha waa maalin adag waa maalin 50,000 sana ah 50,000 sanadooda waa maalin cadceed u dhowday waa maalin qof waliba uu dhididayo dembigiisu intuu leekaa waa maalin kadeed badan intaan janno iyo naarba laysla gaadhin 50,000 sannadood ee halkan la jooga la isku xisaabinayo ayaa kadeeda kadeedkaasi dad baa jira ka badbaada iyagu dad baa jira kadeedkaa ka badbaada waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa 7 ayaa maalinta qiyaama rabbi hooska geeya waxay culammadu yidhahdaan waa carshiga hooskiisa hadhka ama hooska carshuraxmaan 7 qof baa iyagu maalintaa hadhsada oo ka badbaada qiyaamaha kadeedkiisa 7dan waxaa ka mid a dad acmaal waaweyn sameeyey waxaa kaloo ka mid ah dadka dhowrsanida un ku dadaalay dadka acmaasha waaweyn sameeyey maxaa ka mid ah alimaamu alcaadil buu nebigu yidhi إمام مسلم كوتل يو عدالة سمية أمد نينو عدالة سمية ورجل عظيم أمد نينو عدالة سمية ومنزلة عمر يا أبي بكر يا رقاها هاي كنت أقول وحنا بيقول لي عليه الصلاة والسلام مركها إمامك عادل كأه حنا بيقول كحكسي وإمامك كنت ضبن ميد سووا نفتي سكات كادور اللي يراه شاب نشأ في عبادة ربه اللي يرى إلهي عبادتي سكو بربارتي اللي يراه اللي يرى دوا فضيت اللي يرى نما دوا فضيت لكنك يسوع اللي يرى وايل كنقضي يا إلهي عبادتي سلازمي كاسي إمامك عادل كأبو لك وحيه
waxaa kaloo nebigu sheegay qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay waa nin cibaado badan oo jamacaasi aanu dhaafaynin salafkii rag baa la sheegaa yidhaahdaa 40 sannadood allahu akbarta koowaad ee imaamku ima dhaafin jamaco qura maaha waa takbiiratulixraam nebiguna muxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha 40 maalmood baan leeyahay 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam 40 yowman ninka takbiiratulixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nebigu ku tilmaamaya baraa'a min annaar baraa'a min annifaaq waa laba shahaado idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nebigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya warajulaani taxaaba fi llah ilaahay dartii bay isu jeclaadeen ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan innagu kaynu u soconnaa waa kan ku xiga markaa dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaan keligood cibaadaysta ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaabaa jamacu markuu joogo imaam cod fiican ku tukinayo inaad iska yara khushuucdo ama ilmaysidba laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulun ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliya ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadat caynaa indhihiisu ooyeen waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadkaa maalinta qiyaame badbaadada noocaasii helaya rajulun طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها نبغى حول النين أي ويردي قباري مرك هروا النين رجولة دريمية مرك الله بعدنا نلاش عادي قاعد أنت بدل رجع هنقولي بدل أو دكتور هادية ثاني وعكسها نين يسقي إلى صوت ضغطي رجل ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama manzila rafiica status leh social statuskeedu waa gabadh upper classka طبقة العليا كترسن إذا gabadhani magac iyo maamuus upper class ka ka tirsantay oo almost ilaa hanti haysatana waa u badantay waa gabadh magac iyo maamuus bale quruxna la siiyay waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam inni akhafu allah gabadha ilaahay baan ka cabsanayaa yiri ilaahay dartii uga tagay dad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxa uu nabigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaada inaad ku biirayso inta carshu raxmaanka harsanaysa inaad ku biirayso waxa kaloo quraanku inoo sheegaya fadiilada sare dadka helay nabi kamid ah yani iyadoo practical ah markan iyadoo theory la sheegay laakiin iyadoo practical ah ayaa ilaahay qisada haddana quraanka inoogu soo arooriyay nabi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qola socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyay gurigiisii imraatul aziz loo geeyay nabi yuusuf markaa gurigu ku nooliyay
ninka meesha maamula gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamada tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay yidhi albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii beytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada waa xodxodatay si kastoo ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan qallaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteedii markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxantay laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhubayaad ceeboobin baad is leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo socankaa maaha ama meelaan cidibo kaa garanayn markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiyo reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanayna buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhami jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo tiriyaayo uu leeyahay waa dawaacu zina baa qisadata ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi innahu rabbi axsana mathwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahay waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ahi yatacawad qofka mu'minka waxa caado u ah inaanu xooggiisa qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu magansado wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaa wadaanu kaa kaalmo dalbayna acuudu billahi min ashayطaani الrajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyahy macaada allah ilaahay buu magan gelaya waxaanu tilmaamaya innahu rabbii axsana mathwaaya innahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa i nimceeyo god buu iga soo saarayo waa dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax ku siiyo qofkaa waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaha si qaabka ilaahay u abuuray hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa qofku markaa hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calal aqal agtaada lagu xuman maayo
كورن قفدو وحكوسية وحكوسية أو وحي وكوسية أدو أديك ستسات سجا ودي بلهاي كادت وحيد هذا نوع حوالين وقفح قفاد وحسين يسوع وهذا وحي أتسين يسي كنت تلقى لينو أديك كوكو ديبو دقن حمدا إنه أنت بدن كل دقن إلهي كل دقن والنوع إلهي بين النوعية عافماد السيء وحكرين السيء أودا وحول بل وحي ونقول نمعيين وحي يريد بس واد ما هتصنتي ونقولها عبادته وإلهي إنه لأن واد ما هتصنتي إلهي إنه ما هذا نقيله هل كانت كم هذا نقل هيد أياد وحي ونمعك السيء السجا مع سيدي سكوا أديك ستة سات سجا وعاصي لهيد أياد كوا أديك ستة وحاضر فالو نبي الله يوسف مركا وحليه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إلهي بان مغان ربي جاي ماشى واي وناتشي ظالم كنا ما ملي بان مفسرين التفسير لبعض بيسارار وحيليه وحوسنا حرمين يا إلى لنا يا نكن أبالك كله ويعني كلمة كسوي بسده وحكويري ويلكا إلى لي بكويري سورة إلهي كقول ربي أكرمي مثواه ماشى الدشيني سيا وحصل كرامة بكويري مركها أضيقا بريقا كاني وكلا دردار ما يغير كي قبل إنك كان سفي عن الله دغمه إذا وحليه هي نبي يوسف أبا الله وميه نكي سيدا قالين إن هوينكي سوي دارته إن حاسكي سوي دارته إنه ربي بولي إنه ربي وكي برباريي وأحسن مثواي أكرمي مثواه واتي ويريه وأحسن مثواي بولي دقان كي نفي عنيسيي مر نبض ظلمي ما يبولي إنه لا يفلح الظالمون إذا النبي الله يوسف وحي إلهي تصالى قرآن كوغدك تصالى شواوين النبي يوسف لينوغا صوصيه كم تهي عفضة ولما عفة اللسان هي عفة الفرج لبدا النبي يوسف على صور نقلنيا ولا الذي سيوحي لوغا كسميه أي توبوها إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلهي وحده فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له حتى إنه كويل هذا وردك توجا وكعشاض عفة اللسان عرب كيسو دوري هل كان فرج كيسو دوري مركا أركتي إن أنا أقولين أي واحد يسكت ضيدا إنه كفصته إنه حوكته أرنكو هيت لك سودا في مركان حوك بمريا waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo waa carara cagtu miciin biday inuu ordo oo baxsado isku day isagoo ordayay inay eryeyso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaa'u man araada biahlik سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم ومحي أبا المركب يتري إنك الرير كاقب حماها الله دوري إلا حده يضو بقرك وطنك أما مدحوينه وطنك هوين يديس الأول هذا أما والله عياريسة أما والله حرية هدو بقرك حدنا ساد وصباح السعيد كرم ميسو هذا بقر وحبسك وقرده ساد وصباح الدونطة يانا وحلا قرانا يا ما هل كامرك يشوفته نبي يوسف ربي بكون نوضي إلهي ببرية محو إلهي ويدي سنية رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدو فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بيتي ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن هدي وحا رماه السمين ويبي لدوال لحدي كوا للدلين وكم النغل هدي لو يراهdo xabsi iyo kala dooro hadama aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysa nabi yusuf markaana xabsi u doortay
إن الرب عاصيه أيا وحول بكحم بولي سادر أدد حلي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله حبسك أيا أكتيد لقاك القعل بدي وحي ويريا إن حبسك قالوا أيا كرم بولي إلهنا سبحانه وتعالى وحط المام يا مرك ولي بوحد وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هدانت مكر جود يا خيام جود يا نجر تودا هدانت أضو يدافنين ويلك ده يقول يا أخي هداي دعوة سنة وحمقرة تضعف بيريا يا جاهلة قف كستو إلهي عاصية جاهلة جهل ومعلومات كماها علمه معلومات ماذا حاجة كتيرة معها علمه هو دورسان وأنت أتقول أنت علمية أنت تربي كل وين يهي يا محارمتي سكت كجاب صنيسو يا إلهي سبحانه وتعالى وحني معك السيئة أنا دواء بالقدينين مع سيدي سكو سميسو سادر هذا النبي يوسف عليه له حبسك أيام نام وحي ويريان هدي أنا ضدوا دورنا واتشبيا إلهي وحليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلهي الدعاء دي مكاقبل دعاء دي مركو لقى أقبلي محال لو سمي حبس قال لك إيه إذا دعاء لقى أقبلي وامحي حماها هي حبسك حماها حن مركا كان حبسك يعني واحل وحماها سا إلهي سودا فيه دبتنا حبس على كان حبسك إلهي سيدا فيه يوم حل قدقي مضح إلا وكان نقضي وزير كوطن كتلية إلا ومركي دبي قاعدي ودور سند ودور سنة هذا طريقة كانتي أفرتي دبا أيها الأحبة نبينا عليه الصلاة والسلام حينات المامية من يضمن لي بين لحيي وما بين الرجلين يا لبدي سدان انت ورنا حيسة الضمانة قاضية إنه يلاليه يا لبدي سادين انت ورنا حيسة وعرب كيف فرجك نبي محمد بن حلي كما ضمانة قاضية إنه عرب كيس يلالنا يو وأنو حماك كنا واقعين فرجك يلالنا يو وأنو حرام كدونا نين هذا ضمانة ده إنه والله نمادنا نبي محمد نبي حلي أضمن له الجنة أن الجنة أيام ضمانة قاضية حديث البخاري هذا إذا قصاص ما يسان وبلغ هكا صوب بحضان أنه حندي بلغ قاضي النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة لسان إذا دور سوندو وعبادة كهبين ودن تاجن وتجاري كرتا هذا عرب كاجي يفرج كاجا قوة دورة كم من نقطة هوين كان واكين النبي يقول هوين يدو هذا يشنتيد تكتو بشيء صامته فرج كذا إلى شطه من كذا أطيعه الباب هذا الجنة الله يا كادون سكت جنة السداد الباب إلى هذا الباب الضد قارا كقلا الباب مجاهدين كقلا والباب أصحاب الصدقة كقلا والباب أصحاب الصلاة كقلا والباب تخصصات كقلا له الباب هو الصومن كقلا باب الريان أبي بكر مركو النبي قويدي متشرا قف الباب هذا سورنا كقلية وحنا بكوير ها سبحان الله أركاين هذا ضو خمسة هاي النبي بكوير إذا منزلة أبي بكر بين قبل ذلك كده بتجلسه وهي وحل لي الباب كادونته أبي بكر وحلا سديد الباب مدلو غير يا متشرا النبي قها بيقول هذا قال إن شاء الله هذا كم يدا بتلمامي هو أنت إنه وحل لي أي أبواب الجنة بالله يا شئت كقل كادونته وما حي سميسه وحي سميسه إن الصلاة كتي أو صومتي من كذا أنا أدعي فرج كذا أنا إلى شطيب والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة إن تفرج النورطة وحكم دي عبادات كبريضة لو أقبله مرة بتاعنا مستجاب دعوة نقطة تطلع واحد أنا يو إلهي بدل ما بريه وحيان ويدي سري ما نارك مرة بتاعنا لقى أقبله صامت عش إن بريضة عند الله مقبولة نقطة الباب هذا الله يكفر يهين وحكم ده وحيابه كفر مان قفكو وحنا ينا إلى عليا فرجي سنة إلى شرع
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay saddex nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuralayda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaar buu ciid yara haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidlo ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin laa mobile baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay saddexdii nin yidhaahdeen waryaa nin walowba bal wixii aad is leedahay camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari saddexdii nin mid waliba camalkiisu ilaahay ku baryay mid wuxuu ku baryay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalin maalmaha ka mid a xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkiiyo da-a wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen goor dambuu yimi wuu soo lisay markuu la dil yimi buu u yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cidtoona waxaa siinay waalidka u horraysi wuu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawa iska 20 daqiiqo qofka markuu da' gaadho wuu yaro seexdaa waa soo toosaa waa yaro seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo ula dul fadhiyay caanihii baa waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islahaa mar uuna indhaha kala qaadan hana toosinin hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaha kala qaadan aad siisid buu lahaa dabeetana waagaa ugu baryay siduu ula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryay wuxuu leeyahay yaa rabbi waad ogtay inaan dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ilaa u dhagaxaa naga fay buu yidhi dhagaxii in buu hanqada laakiin in laga bixi kara maaha mid kale ilaahay baryey wuxuu ku baryey inuu shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo uu yidhi warriyo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeyey isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aniga halkaa daaqayoo dhan adaa le kaxayso war igu cayaarinaya intii maalintayduunaan shaqaystay intayduunu sii buu leeyahy wuxuu yidhi intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay wakaase ilaahu waad ogtay buu leeyahay ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka fayday weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiisku wa kala horraysiinayaaye siduu kala horreeyo mayna sheegini kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diidday gabadhii diidday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi isukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahab u siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa imise de waa kuus dhan oo lacaga waa xoolo aad u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbasha laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantahay baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaa war ilaahay ka boqo oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn ittaqi illaah bay ku tidhi ereygaasaa madaxiisa galay ittaqi illaah war hooy ilaahay ka cabso ayay ku tidhi dabeetana maradiisu dib u xidhay wuu iskaga tegey dahabkiina wuu siiyey xumihiina waxaa ka kaxaysay in lagu yidhi maxay ittaqi illaah ilaahay ka cabso
إلهي بو بريي إلهي عمل كاسوكو بريي إله وادق الدرات دا إن الزنا دا وتبي تبتنا إلهي دقيقي وكفي إذا صدح ذنن متكمل الدعاء دي سوى حلوة أقبل محي إنه فرجك يصير ورطي قصة كله وحقها وين كان أنا بتشيء ملا نبي الله إبراهيم أيه هجرودي سوغا إلا صعته وين يديسي صار لورنجري صارنا قبل قروح بدن باي والنبي إسحاق هو يدي iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqorrada ka mid uu ka taliyo boqor aad u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahim oo safaro haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badan oo saara la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaado boqorkaa loo geey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadihi lati macaka war tan kula socotaa maxay ahayd nebi ibraahim wuu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhiye haybeenini gabadh kastoo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku yidhi waa walaashay waanad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo in loo walaalle ma jirto haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yar isug waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay baratay ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulik wa axsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaane aan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya hada alkaafir ilow gaalka ah igu ibtilayn waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuha billaahi wa birasuulih rumaynta ee alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ah igu itixaamin bay tiri gaalkii baa suuxay markuu suuxay ee nafti isugu timi waa labadooda ayaa istidhi oo hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow ha igu dilin bay tidhi ila waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay war bal yara sug bay tiro waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii ileg alle ku bariday haddana dib u suuxa naftu markay qabatay bay istiri war haddana waa lagu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad ba haddana isku dayay ilaahay bay haddana bariday waa miyir beelay waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaa soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timo wa huwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay isna xagga kale uu taagan yahay oo salaad u taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo
إذن أيها الأحبة وحلنا هذا ربط إن دعاء لقى أقبله وحيابها الدعاء لقى أقبله وحكم إذا مركه دور سنة فرجة أو دور سنة كوي قد كجالينا إلهي كربدا وكجفيد كبرد بقر كدم وكحيستينا إلهي سبحانه وتعالى وكبد بادي ما حكوا سوكوبي نمر دور سنة دين تكمت حيابها الجنة الله قال كمت حيابها فردوس الأعلى الله هلا كمت حيابها قرآن كإلهي نبي قو أمانة نبي يوسف قو أمانة بكمت هوانتو أمانة مريم ابن عمران إلهي كو أمانة بكمت ولذلك قفك مسلم كاي وينو دور سنادا إنو دور سنادانا مقدمات بيوباهنتي كو علاقات إلهي لا لدي ويني حوغنتي هديك للشيطان قوتوف سنيا ربك يويني دي سي عظمة دي سينات حصوص سنتي جنة إيا النار نطلب ميستي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر باو نبي قولي ورك إلهي الرسول برو ميسن السيدة هيارو ورانك إلهي وحلي ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ساس وحل قوانينيا كو إلهي الرسول برو ميسن يا مالتا آخره إذن إنا ندور سنانا وحي أباهنتي إذن دحمريا هوينكي نبي قبي محل قولي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذا الكهتشبيننا هذين نقطين الدمر ولا هذا شان سر رسمية ولا هذا وسر الرسمي قال هي هذا الكوح كل فاقي وكل الله قفكم مركب مضان لحين قبل الدكان كان مركب سوق الشالات تلاقي بني واي مسيا وين تصل السر هذا وهذا لا نضان لقى لحين لكن هذا الكهتشبي سوق الورمة يراري سيها وكلات بالوضوء واه ما هاي طريقي صحة إلهي مركا هوانك النبي محمد قبي وحلقوا فلا تخضعنا هذا الكهتش بنين بالي ما موسى الويري مايا وقلنا قولا معروفا بالهي هذا في عندها هذا بالهي لكن هذا الكهتش بني ما بنانا وحال فرج هوانك سيقولنا بسنادان ينيني حجابتان أستركو ديني قاطان وحال فرج وروح دو إناني دبد صادقين ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى سيدتك قال هذا هو رئيسو سو بندقي شرتي هاي سو بندقي نبالي وحال فرج سمير لينا وصعطه وهو محلة الماما يعقار لوكا هكو قراعنا يوحى قشنتي دون دينو ما تشوقنانا والعكس المغريات وحلا إلى هذا كده وحشرنا منا إلى هذان ستايل انجينيرينج أو ديزاين انجينيرينج وضد يقول لعكت بدل ما حكى شقيا وحكى شقيا سيدتك الله لوميو وحلوقي قفك بني آدم كا إنك وحيد هذان دايما دي سمسكحد وحاول بدني سوتشي ديه وقفت مرة قفك الدمري وحاول بدن بيد هذان انتباه قفك سوتشي ديه مركي تاو قادين ayay u adeegsadeen waxa xun oo dhan hadii taayir la xayeysiinayo imka TV-ga gabadh qaawan ba horta soo boodis gabadh iyo taayir maxaa ka dhaxeeya waxay hadii taayir la xayeysiinayo gaadhi dheerayn iyo waxa in la ina tusabay Soomaa wax kasta oo la xayeysiinayo mustali cidda wax xayeysiinaysa waa qof dumar ah waay waxa la ogiyay rag oo dham inuu dumar eegayo waxa Ilaahay ku abuuray rag oo dham inuu dumar xaqooda eegayo la ogiyay waxay ogyiin kabaha rag iyo kabaha dumar lama oran kab iyo kab weeyaan isku nooc noqdo kala nooc dumarka kab dheer baa la suraa kab kasto dumarku leeyihiin inta badan waa ka cirib dheertay kabta ragga waayo waxa la rabaa tamaayo markay soconayso inay dheeldheelido hadday si caadi ah u socoto jirkeedu si degan buu soconaya laakiin in balance la lumiyo ay dheeldheelida kabtan fiiqan loogu xidhaa kabaha dumarku inta ugu badan le dhamaantood way sanqaraan kabaha raggu sama sanqaraan nin hadduu dhabarkaaga maraya garan maysid gabadhi hadday maraysa laakiin haana daabay ku leedahay way kan waad maqlaysaa qodho waad soo jeesanaysaa yani waxa kan bilaash looma samaynin waxaan la wado oo dhami waa in xumaha la faafiyo waa mughriyaat waa waxa laaliya wixii qofka ninku markuu xaragoonayo xataa ka gaalka markuu xaragoonayo jidhkoo dhan buu asturaa
ninku waa inuu suud xidhaa koodh xidhaa tay xidhaa meel muuqataaba ma jirto intan yare wejiga mooyaane gabadhu laakiin markay xaragoonayso maxaa lagu sameeyaa bal nin iyo gaal iyo gabadh nin iyo gabadh gaal oo xaragoonaya labaduba arag gabadhu mara gaabano ama goonno halkan joogta ama mid tafta ka dilaacsan halkan joogta ama mid naasac ka dilaacsan maradu iyadu ma astura ninku se wuu wada asturan yahay waa cagsigii labada raggaa cawro yara waxay ahayd in dumarku maxay ay asturnaadaan diimahoo dhammina dumarka way asturaan ma jirto diin dadka dumarka qaawisa diimihii samaawiga ee la yaqaanay idan waxaan uga dan leeyahay muqriyaadku hadda way sii tira bateen gabadhu waxay noqotay wax lacag lagu raadiyo silca wax la iibiyo gabadh kasta waxa la raadiyaa marada meesha ay u qurux badan tahay marka tii kaliyaha u qurux badan le kaliyaha la dalooliya tii naasaha u qurux badan le naasaha loo dalooliya tii luqunta u qurux badan le luqunta tii qaarka hoose u qurux badan le qaarka hoose loo jeexjeexa gabadhu halkay u qurux badan tahay waa inay bannaanka timaadaa that's the style design-kan lagu sheegaya waa intaa waa inuu injineerkan wax sawiraya garan karaa qofta dumar ee halkaa u qurux badan le say quruxdeedii usoo bandhigi lahayd idan ayuha alaxiba dhul gaaleed baa joogtaan waa marka koowaad meel aan zimanadu ceebba ahayn baa joogtaan waa marka labaad waa marka saddexaad ee idina qariib baa tihin meel aydan ceebooben baa joogtaan waxaa u baahan tihiin inaad dhowrsanaataan inaad diintiina dib ugu noqotaan waxaa u baahan tihiin inaad garataan inay diintay rabbi loogu dhowaado janno lagu galo waxa kale dhowrsanidu inay diintay ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala walidaalik waxaa layna afaray si dadku u dhowrsanaado wixii guursan karayo guursada baa layidhi yaa macashara shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawaj nin kastoo dhallinyaro guursan karo guursaa layidhi waxaa layna faray inta waxaysataa xataa kuwa kale inay guurka ugu gargaaraan waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadi u guuriya baa layidhi kuwiina waxaystaana waa baahi bini aadama buuxiya idan warka waxaan kusoo koobayaa wiil kastoo yidhaahda waan isxijin kari waaye aakhire nebi yuusuf baa ku markhaati furaya in la isxijin karo gabadh kastoo tidhaahda waan isxijin kari waaye maryama aakhire ku markhaati furaysa in la isxijin karo laakiin maxaa loo baahan yahay iimaankaagu inuu xoogoobo meelaha fitnadana inaad ka dheeraato oo dhulka khayrka iyo wanaaggu yaallo inaad u badatid sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin